العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha muslimiinta meel kastoo dunida aad ka joogtiin waa walaalkiina ustaad cabdulqaadir siido ibraahim oo aad ugu barateen inuu idiin soo tabiyo ducooyinkii saxda ahaa ee nabi muxamed sallallahu calayhi wasallam laga soo wariyey. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. haddaba waxaan soo qaadanay xalqadii koowaad iyo labaad iyo saddexaad sida guriga loo soo galo iyo sida loogu baxo ducooyinka la akhristo iyo hurdada markii laga soo kaco. haddaba haddii aan doonayno inaan suuliga aan galno ama musqusha waxaan ognahay inay shayaadiin oo lab iyo dhadiga ay dhex degan yihiin oo qofka muslimka laga soo raaci karo oo waalidu ka soo qaadi karo, isla hadal ka soo qaadi karo, isku buuq ka soo qaadi karo, waswaas ka soo qaadi karo. haddaba sidee loo gaashantaa? bismillaah allahumma inni a'uudu bika min al-khubuthi wal-khabaa'ith. bismillaah allahumma inni a'uudu bika min al-khubuthi wal-khabaa'ith. bismillaah allahumma inni a'uudu bika min al-khubuthi wal-khabaa'ith. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaa inuu idinku anfaco, idina fududeeyo dhaqangelintiisa iyo xifdintiisa, bara caruurtiina, xaasaskiina iyo nafsadiinaba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.